madaxda saaxiibaday ee xubnaha golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ee guddoonka jaamacadda Capital University macallimiinta iyo barayaasha jaamacadda iyo maamulkeeda ardayda qalin jabisay maanta iyo waalidiintood iyo saaxiibadoodba waxaan idin leeyahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa farxad aad iyo aad u weyn in aan maanta halkan ka soo qayb galo oo aan imaado waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaan waqti badan sii joogo daawado ama arka hal abuurka ardaydeena iyo qalinjabiyaasha ay soo bandhigeen laakiin waajibaadyo kale oo shaqo ayaa ii saamixi waayey markaa guddoomiyaha jaamacadda waxaan u ballan qaaday inaan aniga iyo wasiirada kale ee ay khusaysa hal abuurka gaar ahaan kuwa hadda layna tusay aanu jaamacadda ku soo booqan doono insha Allah tacaala si hal abuurkooda u soo bandhigaan waxaan jeclahay inaan marka hore ka bilaabo hambalyada cidda mudan maanta oo ah ardayda qalin jabisay ee ku guuleystay waxbarashadii inay dhammaystaan waxaan hubaa kuwa badan oo fasalada isla bilowdeen maanta uma suuragelin inay dhammaystaan ama waqtigaa ka lumay ama ma yeelanin isxilqaankii iyo dulqaadkii iyo kartidii ay maantoo kale ku soo gaari lahaayeen marka inaad maanta soo gaarteen hambalyo ayaan idin leeyahay qalinjabiyaasha oo dhan mar kastoon qalinjabiyaasha arko waxaa igu soo dhaca waalidkood inay yihiin kuwii la daba taagnaa talada taakulada iyo ka warhaynta waalidka markuu igu soo dhacana waxaa igu soo dhacda hooyada Soomaaliyeed oo maanta meeshan aad uga muuqato waa kuwii ku dadaalay inay intoosiyaan waxaan leeyahay hooyo hambalyo adinka ayaa guulaysateen guushana adinka ayaa keenteen haddii aan taa ka soo gudbo farintayda ugu muhiimsan waxaa weeye haddii maanta aad waxbarashadii heerkan dhammayseen adduunka isbeddel aad iyo aad u xooggan ayaa ka dhacay gaar ahaan waxa ku saabsan aqoonta wixii shalay la yaqaanay maanta waa ka soo gudbaysaa adduunku wuu ka soo gudbaya yacni isbeddelka adduunka ku dhaca waa daqiiqado waa ilbiriqsi marka haddaa iska seexatid oo aad tirahdid adiga jaamacaddii waa dhammaysay dhibkii buugga iyo qalinka iyo kalahidda iyo imtixaanka iyo waa ka gudubtay oo aqoon-yahanaa tahay haddaa 3 bilood seexatid waxaa noqonaysaa qofan waxba aqoon oo kale adduunka sidaasuu u socdaa marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaad aqoontiina sii kordhisaan wax akhriskiina sii kordhisaan cilmi baaristiina sii kordhisaan kuwa hal abuurka sameeyeyna hal abuurkoodaas inay sii farsameeyaan sii badiyaan horay ay u sii qaadaan qarnigan 21aad aan ku jirno waliba hadda dhowrkii sano ugu dambeeyay waxa isbeddelka dhacay iyo xawligiisa adduunyadu ma soo marin 100 sano oo la soo dhaafay marka yaan la seexanin waxaa maalin marka akhrinayo waa maxay cilmiga ugu muhiimsan ee qofka uu u baahan yahay maanta la joogo waa maxay cilmiga ugu muhiimsan cilmi kastood barato waxa ugu muhiimsan awoodda aad u leedahay inaad waxa adiga aad taqaana dadka aad gaarsiin karayso luqadda dadka waxa lagu gaarsiin lahay habka iyo farsamada dadka aad wax ku gaarsiin lahayd inaad taqaano ayaa wax kasta ka muhiimsan marka communication skills waxa loo yaqaan ama xirfadda isgaarsiinta loo yaqaan oo awood kuu siinaysa waxa aad baratay inaad bandhigi karto
dadka inaad ku qancin karto waxa aad aaminsan tahay inaad si wanaagsan ula dhaqmi karto inaadan dhahin wallaahi aniga wax fiican aan ula jeeday waa la fahmi waaye haddii lagu fahmi waayo adiga ayaa sabab u ah marka waxaan rajaynayaa weliba waqtiga hadda aad haysataan inaad xoog iyo waqti badan gelisaan awoodda isgaarsiinta ee aad u yeelan kartaan inaad dadka qancisaan oo aad gaarsiisaan waxa aad aaminsan tihiin luqadda ayaana ugu muhiimsan oo ugu horeeya waan hubaa kuwa idinka dambeeyey waa idinka nasiib badan yihiin sababtoo ah sanad foundation year ayay waxay ku qaataan inay xoojiyaan awooddooda communication skillska ay u leeyihiin wax badanna aan filay inay ka bedeli doonto jaamacadda anoo aad iyo aad u bogaadinayo jaamacadda ka xun inaanan sii joogi karin ballanqaadkaas sameeyey waxaan jeclahay inaan fariin kale dadka halkan aan soo gaarsiiyo jaamacaddana aan soo gaarsiiyo ardayda jaamacadda ka baxday waa inay jaamacadda taageeraan waxa ay ku taageerayaan waxaa ugu muhiimsan markay meel tagaan ama ay shaqo galaan ama ay shaqo doontaan in la yiraahdo alla ilahe ardaygan waa ka fiican yahay dadka sababtoo ah waxa uu ka yimid jaamacadda Capital University midda labaadna waa markaad meel gaartaan duruufta jaamacadda inaad ka warqabtaan oo aad kaalmaysaan dhaqaalihiina ku kaalmaysaan fikradiina ku kaalmaysaan awoodiina ku kaalmaysaan waqtiga dheeraadka ee aad leedihiin inaad ku kaalmaysaan sababta aan sidaa u leeyahay maxay tahay marka waxaan u leeyahay waxa soo batay macna darro dadka loogu sameeynaya hayb aan macno lahayn oo la yiraahdo haybta qabiilka reer hebel aan nahay jufa hebel aan nahay annagaa saane dadka loogu sameeynayo waxaasi hayb sax ah ma aha haybta saxda ah waa kuwa aad isla degan tihiin waa kuwa aad isku fikirka tihiin waa kuwa aad isku danta tihiin kuwaas waayo kuwa haybta saxda ee kala dhaxayso haddii jaamacadda ay idin abuurtay sanado badan inaad hayb yeelataan inaad haybtaas aydan ku bedelanin hayb kaleeto oo aadan garanin xataa mararka qaar inay sax tahay iyo in kale iyo oday hebel aan ku abtirsanaa iyo annagaa jufa hebel isku oo aad qaaraan ku bixisaan jaamacaddiinni iyo meeshaad ka tagteena aad ilowdaan sax ma aha marka waxaan rajaynayaa in jaamacadda la garab istaago saaka waxaan soo maray jaamacadaha ka mid ah oo malaayiin dollar ku bixinayso in ay iyada kambas dhisato oo dadka Soomaaliyeed ay bixiyaan haddana waxaan u taaganahay wiilasha iyo gabdhaha ama cilmiga looga badbaadiyo xeebaha iyo khatartooda soo hal abuuray ama tiknoolajiyada soo hal abuuray mid kaloo dariskiinana hadda ayaan u socdaa ummadda sidaa u korayso ee horay u jeedo ee aan gadaal fiirinaynin ayaa waxaa jira kuwa annaga naga tirsan iyo kuwa aan naga tirsanaynba oo ka shaqaynaya kaliya in gadaal la fiiriyo oo aan horay loo socon waa inaan madaxdeena doorannaa waa inaan deegaanka dadkana matalaya aan doorannaa jaamacaduhuna waa inay soo saaraan madaxda jaamacaduhu waa inay soo saaraan madaxda dalka iyo dadka hogaaminayso runtii wax badan baan jeclaa inaan sheego laakiin markaan jaamacadda isugu nimaadno ayaan ka hadli doonaa mar kale iyo mar kale hambalya ayaan leeyahay ardayda iyo waalidiinta iyo qalinjabiyaasha iyo maamulka iyo hoggaanka jaamacadda aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sanad guuro wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiir faarax milyan jeer ayuu mahadsan yahay waxaan ka codsaday isagoo howle darteed in uu laba howl inoo qabto wasiirka halka uu inoo joogo waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo si uu noogu soo biiro wehel uu ugu noqdo gudoomiyaha yaga jaamacadda